ninka cagihiisa waa la silsiladeeyey waxaana la rabay in bad lagu tuuro si uu u noqdo cunto kalluunka sharka. isagoo qaylinaya jahawareerka dhexdiisa ayuu ku dagaalamay wixii awood ah ee uu lahaa, wuxuuna ku guulaystay inuu bastoolad ka dafto gacanta dilaacato ah. meel yar oo sagxad ah oo ku taallay darafka doonta ayaa siisay taageero yar oo uu ku sii noolaan karo, laakiin markiiba dilaagii buurnaa ayaa baroosinka ku tuuray badda, taasoo ku qasabtay ninka inuu ku dhigo tuub bir ah oo ku taal dhabarka doonta. dilaagii buurnaa wuxuu rabay inuu cagta ku riixo oo hoos u tuuro, balse ninku ayaa ka hormaray oo xabad kaga dhuftay cagta. isla markiiba dilaagii caatada ahaa dhegtiisa bidix ayaa xabaddu ka goysay. labadooduba xanuun bay ku qayliyeen, ninkuna wuxuu isku dayay inuu dib u fuulo doonta. si kastaba ha ahaatee, baroosinku aad buu u cuslaa oo ma jiidi karin. dilaagii caatada ahaa wuxuu kor ugu cararay jaranjarada, isla markiiba matoorka ayuu shiday, doontiina si xawli ah ayay u dhaqaaqday ilaa ku dhowaad 1 eber mayl saacaddii. ninku bastoolada ayuu ilkaha ku qabsaday. doontu sii kordhaysay xawaaraha, baroosinkuna si xoog leh ayuu biyaha hoostooda ugu jiidayey. hirarka xooggan ayaa bastooladii afkiisa ka tuuray, ilbiriqsiyo gudahoodna waxaa hoos ugu jiiday miisaanka weyn ee baroosinka. jidhkiisa ayaa lagu arkayay qoto dheer oo badda ah, wuxuuna garwaaqsaday in wakhtigiisu sii dhammaanayo. wuxuu si waali ah u ruxay cagihiisa silsiladaysan, balse waxba ma dhicin. daqiiqadaas quusta ah wuxuu si kedis ah wax u xasuustay. nasiib wanaag biyuhu weli way nadiif ahaayeen oo wax la arki karay. wuxuu arkay bastooladii hore uga dhacday, mana fogeyn. wuxuu si dhib badan u jiiday baroosinka dhinaciisa, dabadeedna si xoog leh ayuu ugu laadlaaday dhinaca bastoolada. inkastoo baroosinku aad u cuslaa, haddana sabaynta biyaha ayaa ka caawisay inuu si tartiib ah ugu soo dhowaado. dhaqdhaqaaq kasta wuxuu si degdeg ah uga dhammaanayay hawadiisa neefta. ugu dambayn bastooladii ayaa gaartay gacantiisa. wuxuu qabtay si degdeg ah ayuu u hagaajiyey silsiladii cagaha ku xirnayd, wuxuuna ku toogtay xabad. nasiib wanaag bastooladu way shaqaysay xitaa iyadoo biyaha hoostooda ah. silsiladii way goday, wuxuuna daqiiqad ka hor intuusan hafan dib ugu soo booday dusha sare si uu hawo u qaato. hadda wuxuu ku dhex godoonsanaa badweynta, daalna aad buu u hayay. nasiib wanaag meel u dhow waxaa sabaynayay sanduuq xumbo ah. intii xoog yar uga hadhsanayd ayuu ku dabaashay oo ku dhegay, wuxuuna badda ku sabaynayay maalin dhan. markii uu rajada ka quustay ku dhowaad, dooni xawaare ku socota ayaa ka timid gadaashiisa, waxaana saarnaa dhalinyaro madadaalo u baxday. wuxuu si degdeg ah ugu tilmaamay inuu harraad u dhimanayo, midkoodna wuxuu u soo tuuray qasacad biir ah. laakiin isla marka uu isku dayay inuu furto, hir ayaa ku dhacay oo mar kale biyaha ku tuuray. markay arkeen sida uu u liitay, dhalinyaradii waxay kor ugu soo qaadeen doontooda.